haweeney kasta oo ubadkii ka soo dahay ilaahay wuu ku hibaynayaa haddii aad aamintid kuna kalsoonaatid dariiqadan aan ku sheegayo. ilaahay baa sidaa kuugu hibaynaya hadday noqdaan labo ama mataano, hadday noqdaan keli, hadday noqdaan wiil, hadday noqdaan gabar. 3 bilood subax walba 70 jeer aayadan akhri. waxaanaad ku tufanaysaa galaas biyo ah ama koob biyo ah, kadib waa cabaysaa adoo waxba cunin subaxa hore. natiija helaysa ilaahay qadartii subxaanahu wa tacaala. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. walaalayaal kusoo dhawaada casharkan naho muhiimka insha allahu tacaala. waxaynu kaga warrami doonaa muuqaalka kan kitaabka jaamica ee kulmiyey nolol adduunyo iyo nolol aakhiro wax kastoo ku saabsan aayad ku dhex jirta. laga yaabaa qaarkeen in aynu marno orod ku sii marno kuna soo marno, laakiin faa'iidooyinka ay aayaddaasi leedahay gaar ahaan ay u leedahay xaaladaha qaar ee culayska badan ee qofka qabsada, xaalado weliba aada u adag ah bay aayaddaani insha allahu tacaala ka mid tahay aayadaha lagu ogaaday waxtarkeeda ilaahay idinkiis. waxaad arkaysaa hooyo ama haweeney ku dhahaysa intaas ayaan waxaan lahaa reer, kadibna ilaahay ima qadarin hooyanimadii aan raadinay ubad 8 sano 5 sano 2 sano 3 sano 4 sano 10 sano 15 20 sano gaarsi ayay haweeney reer leedahay. ilaahay haddana ilaahay ku irsaaqin subxaanahu wa tacaala. halkaa waxaa ka dhalanaya dhammaanteen waa garanaynaa marka niyad jab kale, isla hadal kale. keliya qofka ma ahan arrinta ay ku dhacday inay arrintaasi uga imaanaysa naftiisa, bulshadana uga imaanaysa, dariska, asxaabta, qaraabada, walaalaha. maxaa kugu dhacay? weli wax ma haysa. markaad aroostid bilaha ugu horeeya lagugu bilaabaya wax ma jiraan. haddaad tiraahdeed haa wiil iyo gabar maxay kala yihiin, haddaysa jirinna laga aamusaa ma jiraan. haddaad tiraahdeed kadib waa dambaa lagu soclaya ma jiraan. mar kale wax ma jiraan ma jiraan. waxay leeyihiin marka qofkan meel buu ka ciqaaban yahay, qofkan saasuu yahay. markaasaa loo taanataaninayaa oo la fasirayaa oo la falanqaynayaa, wararku soo gaarayaa, ku-digashadu soo gaaraysaa. laa xawla walaa quwata illaa billah. laakiin xalkii waa kana insha allah. xalkii waa kana. aayaddan ayaad akhrinaysaa muddadan aan kuu sheegi doono haweeney yahay haddii dhalmadii kaa soo daaday. tanaa dhakhtar walba noqo dhakhtarka iyo waxqabadkiisa xaqinayn ka xoog badan. sawaayo waa kalaamu rabbulcaalamiin. allaha og xaalad walba gedgediya, xukun walbana soo dejiya weeye aayaadkiisa. ma ahan dheeldheel iyo wax tijaabo iyo mala awaal iyo khubro waxay falanqeeyeen, ee waa kalaamkii rabbigeen subxaanahu wa tacaala. kitaab cajiiba weeye. intaynu kaa ku dhegannahay, intaynu kaa baranayno, intaynu kaa fahmayno, intaynu kaa dhexgelayno weli waa roonnaa insha allahu tacaala. laakiin maalinkaa kaas dayacano mustaqbal adduunya mid aakhiratoona sugi mayno. xaqiiqo wey taas, waana waxa maanta dadka in badanoo kamid ah haysta. usoo rujuuca marka kitaabka rabbi subxaanahu wa tacaala. kala hena xal walba dhibaato ida qabsata wax xal u ah ka hela insha allahu tacaala. haweeney kasta oo ubadkii ka soo dahay ilaahay wuu ku hibaynayaa haddii aad aamintid kuna kalsoonaatid dariiqadan aan ku sheegayo. wax badan waa laguu sheegay, wax badan waa lagula taliyey, wax badan dad waa kaa soo gaareen. qof bukan boqol u talisay waad noqotay, laakiin xalka kaba dambaystaa weeye aamin insha allahu tacaala. waa kalaamka rabbi, ku kalsoonow sidaana u fulay ilaahay idinkiis. waa aayad iyo istikfaar wada socda iyo waqtigan muddo 3 bilooda ayaad uur ku yeelan insha allahu tacaala. ayaad hooyo ku noqon si weliba xaqiiqo ah oo waaqic ah. ilaahay baa sidaa kuugu hibaynaya hadday noqdaan labo ama mataano, hadday noqdaan keli, hadday noqdaan wiil, hadday noqdaan gabar. ilaa xaaladda dadka noocana haysata xitaa waxay tamaninayaan mid kala dhantaalan oo kala dhiman. ilaahu isii waxun isii wax un ilme aan carafsado ay taageen maanta. marka insha allahu tacaala ilaahay khayr weydiiso, ilaahay wuu ku jecel yahay. aayaddan aan ka warramayo waxay ku jirtaa suuratul xaj bejka ugu horeeya, waana aayadda 5aad. aayad xoogaa dheer weeye markaynu fiirino, waa ilaa 8 sadar bay ku dhowdahay. markaan macnaheeda dul istaagan ayaa garanaysaa mowduucan aan kaga sheekeynayno, aan ka warramayno in ay khusayso laguna tijaabiyey. maasha allah. aayaddan bili-aadankee la hadasha. waa bili-aadanka ka shakisan ilaahay inuu soo saari doono, soo noolayn doono,
qiyaamaha la keeni doono bini aadamka ka shaqaysan bay la hadashay. asalkaad ciid baa laga abuuraa la yidhi, kadibna hooyo minkeeda lagugu abuuray, kadibna waad dhalato ajal baad noolaatay. ilaahay wuxuu ka sheekeeyey marka sidoo u abuuray, taasaan samaynay ma waxaan samayn weynay in godkan taa ka soo saarno sidii hore kugu celino. cajiib, kuwaasuu ilaahay la hadlay. marka halkaasaad ka barakaysanaysaa oo aayadda ka soo jiidanaysaa adoo u niyeysanaya inuu ilaahay kaa farxiyo. ilaahay idinkiis uu kaa farxinaya. ilaahay murugadaada dooni mayo, ilaahay dooni mayo in uu ku murjiyo. maasha allah, diiq baa ciyaya, waana abshirta waxyaalaha lagu helo diiq markuu ciyo. nabiga ilaahay wuxuu yidhi markuu ciyo diiqu saqda dhexe, yani malag buu arkay kaanamaa inuu ducaynayo, adiguna kuu ducaynaya ya aamiin dheh inuu ilaahay ubad ku siiyo, inuu ilaahay farxad ku siiyo, inuu ilaahay stresska kaa saaro. marka diiqu wuxuu ka mid yahay xayawaanada mucjisaadka ah, codkiisa maqlaysaan. malag buu arkaya, khayraadku dadku u toosinaya. nabiga ilaahayna sidaas ka sugan calayhi salaatu wasalaam. aayadan subaxii marka la gaaro, waagu markuu baryo, ayaa akhrinaysaa 70 jeer. waagu markuu ku baryo 70 jeer baad akhrinaysaa. 3 bilood oo maalinla ah baad wadaysaa. dal kasta tagtay laga yaabaa, tala kastoo dhakhtar fiirisay, maxaa yani ogxamahaada xoogaa daciifa, sheekooyin waad maqashay. tan waa daawo rasmi insha allahu tacaala. 3 bilood subax walba 70 jeer aayadan akhri. waxaanaad ku tufanaysaa galaas biyo ah ama koob biyo ah baa 70 jeer aayadan ku akhrinaysaa, kadib waa cabaysaa adoo waxba cunin subaxa hore. 3 bilood allah hadduu ogolaado. aayaddu waxa weeye yaa ayuha nnaas in kuntum fii raybin min albacthi fainaa khalaqnaakum min turaabin thumma min nutfatin thumma min calaqatin thumma min mudgatin mukhallaqatin wagayri mukhallaqatin linubayina lakum ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. إلى يحيي الضوء هذا وسوانتهين شكي soo saarida qiyaamaha la soo saarayo ogaada dhinaca kala fiiriya. haddana midaas ogtihiin baa idiin sheegayaa. annagu waxaan idinka abuurnay asalkeennii ciid haye, kadibna candhuuf biyo ah oo xaalado kala duwan maraysa. kadibna wuxuu yidhi alle subxaanahu watacaala qofkaas mid dhammaystiran iyo mid xoogaa xaalku si ka yahay buu noqonaya. saan arrimaha idinkugu caddayno buu ilaahay leeyahay. ilaahay wuxuu yidhi riximka iyo ilmagaleenka waxaan rabnaan ku sugnaa ku abuurnaa ilaa waqti buu ku jiraa, kadib uu dhashaa wixii halka ku jira ilmaha. thumma nukhrijukum waa idinka soo saarnaa adinkoo ilmo yara tiflan, kadib baad weynaataan oo xoogaysataan oo da' gaartaan. marka waxaa idinka mida mid dhimanaya oo yaraantiiba ku dhimanayaba. waxaa kaloo idinka mida mid da' weyn gaaraya, duq catataba noqonaya oo iloobiya wuxuu yaqaanay. dadka qaar markii da'du ka tanbadato xitaa ubadkiisii ma garan adeeryaad ahayd buu leeyahay. heerkaasaa idin gaarsiinayaa buu ilaahay leeyahay. marka qabriga idinka soo saaro laydinala xisaabtamo wax culaysa ha u malaynina. ma aragtaan miyaa dhulka in marka biyaha ama roobku ku do-o ay waraabsanto, yani naq ay kasoo baxayso, dhulkii uu carfoonayo, yani cagaar noqonayo, udeyg uu noqonayo. ma aragtaan miyaa oo nooc kasta oo macnaha xoolo daaqeen ah ama beera ah, miro walba ah oo qurux badan ay kasoo baxayaan. ma aragtaan miyaa? marka halkan ka barakayso in ilaahay ilmo quruxsan ilaahay kugu dhaxwalo, soo saaro, kuu barakeeyo, baarina kaaga dhigo. aayadaas akhrisada insha allahu tacaala. isla waqtigaas istikfaarta kama reebaysid subaxa iyo habeenkii. subaxii 1000 jeer oo istikfaar, astaghfirullah astaghfirullah 1000 jeer oo istikfaar. habeenkii bacda lishaana istikfaar, yani subaxii markaa suuradaas galaas biyo ku tufatid 70 jeer cabtid istikfaarta 1000 jeer baad leedahay. bacda العشاء habeenkiina 1000 jeer baad leedahay. muddo 3 bilood insha allahu tacaala natiija helaysaa. ilaahay idinkii wey
ilaahay qadartii subxaanahu watacaala. aayadana qeybta hoose a idiin soo dhigayaa, ka faa'iidaysta walaalayaal. walaalaha kalena la wadaaga. qofka khayrka tusaa dadka kale wuxuu la mid yahay sidii qof sameeyey. u sheergareeya, murugadana ka fujiya. walaalaha ay ciladaha noocaana haystaan uga farxiya kalaamka alleh subxaanahu watacaala. horeyna u socdo. baaraka allaahu fiikum.